شعب قيبي أحيد كنحسي حربي لحيد حوران قرين بي لحيد قرعده تليي لحيد سمان ققلم بي لحيد أي شعب قيبي أحيد كنحسي حربي لحيد حوران قرين بي لحيد قرعده تليي لحيد سمان ققلم بي لحيد guushii Soomaaliyo markay gobonimadu kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa SRTV ku soo dhawaada barnaamijkeeni toddobaad toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamij ku saabsan isla xasuuqii Aisha ee 1960kii ka dhacay magaalada Aisha 1960kii xasuuqii Aisha ka dhacay waxa uu ahaa mid saameyn weyn ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan deegaanadaasi waqtigii maamulkii boqortooyadii Haile Selassie waxay ahayd maalin madow ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan deegaanka Soomaalida kaliya ma ahayn magaalada Aisha ee magaalooyinka Bidahar Dhagaxbuur Awbare iyo magaalooyin kale oo aad u tiro badan ayaa kamid ahaa magaalooyinkii laga geystay xasuuqa iyadoo oran shacab oo waxba galabsan loo geystay xasuuqaad u baan haddaba si aan u ogaano xasuuqii ka dhacay 1960kii magaalada Aisha waxaan jeclahay daawade inaad isoo raacdo oo aan kaaga sheekeeyo taariikhdii waagaasi dhacday waxaana wareysi xiiso badan bahda SRTV ay la yeelatay dadkii ka badbaaday sanadkii 1960kii kadib markii xasuuqa Aisha ka dhacay ayaa waxay siiyeen wareysi dhinacyo badan taabanaya telefishinka SRTV kaalay oo ila daawo barnaamijkan Aisha قيبي أحيد كنحسي حربي لحيد حوران قرين بي لحيد قرعده تليي لحيد سمان ققلم بي لحيد adoo waxaad ka mid tahay dadkii soo goobjooga ka ahaa bal waxaad nooga warantaa taariikhda ee sidii wax u dhaceen xasuuqii 1960kii ka dhacay magaalada Aisha sidii ayuu ahaa maxaad ka xasuusataa sababta iyadu waxay ahayd calankii Soomaaliya iyay sababtiyadu ahayd kolkii calanka la doonayay dee Ingiriis baa halkan fadhiyay kolkaa Boromiya SWS hortaba xamar ka kacday iyaa halkan jigjiga ku soo joogsatay halkan ku soo joogsatay halkan ku joogsatay kolka dee waxa la SWS baa laga wada tirsanaayo bilada la wada lahaa laakiin Haile Selassie yiri hadday Soomaali calan hesho dameeraha geeso bixinaya daartid calanka kolkii la helay yaa dameerihiina geeso bixid loo xidhay oo la soo gashay dalka Itoobiya anada sidaan ma arkayna sidaan ku maqalay sababta iyadu u horeysay sidaa bay hay nacaybada Soomaalida yaa ahayd sidaan Ingiriiska fadhiyay umbu kalbataa ka kuro soo umbu waa kii noo baneeyay hadaa la ilaaho harmukaale meesha la ilaaho ku soo dambeeyay Ingiriisku halka iyo dawanle halka iyo jigjiga jiida ku dambeeyay kol ma sidoo socday kol mid kolkii calanku soo dhawaaday calanka la helay muddo naga yiri kolka magaalada Aisha عندنا ربيع جبوتي ما هاكل كذا وياه جبوتي وبقولي 4 كيلو
dir labana waa 170 kiilo kii talyaanigu soo sameeyay halkan dikada 170 buu ahaa kii faransiisku sameeyay halkan halka kiilo ku jooga 140 buu ahaa labada kiilo isweydaartay buu laba baabuur baad isweydaarnay laba cas joog baa isweydaarnay kolkii dambana way isbedesho cas joog iyo faalto baa isweydaaran jiray oo kurashmaaga halkan ku ahaa marka hore saabay ahayd macnaheedu yay ahaayeen dee taladii kolkii calankii la helay waxaa la lahaa bilad baa la wadaa bilad aswi asha ayaa dadku iyo wada lahaa laba maxaalayna indoo kolkaa cadotinimo waa la iska ilaa cadotinimo kolkaa nooma lahayn sababta aan ku dhimanay asalkeeda horta calankaabayd waxaan ku dhimanay kow ahaay waa dadka ku dhintay haddaan qiyaaso dee magaalooyinka kale waxaan dhulka kale imika la wada furay ma jirin ay dir rabiya jabuuti mahaakalkeeda ahaydoo iyadaa dee halkani oo caasimad ahayd hadhagaali ma jirin oo daraqdaabiyay ahayd haddii la yidhaaho cali simeex ma jirin magaalooyinka kale imika dhulkan camir bay ma jirin dee waayada halkan baa haydwaarka iyay ahayd dadku miyi iyo magaalaba dee magaalo uun lama leyna miyi iyo magaalo sababta marka u horeeyey dee taabay ahayd ee ku xigtay waxaa la yidhi kolkii calanka soomaalida la helay baa yaa meel dhexdaana lagu yaarshirayoo dadkii dee maxamuud xarbi colkiisa ahaa baa kii dee xaggaa soomaalida u kacay soomaalida xaggaa galay ninkii axmed qumane waaga dhaweyd dhinta iyo dee rag badani waa ku halkaa ka jabay kolkii soomaalida axmed qumane yidhi laga doortay ceelgaaloo isagaa dee halkan wasiirka ahaayoo halkan wuxuu ku shiriyey gargaaro meesha la yidhaah kolka maxamuud xarbi baa dee gobonnimo doonka jabuuti baa naga horeysa gobonnimo doonka la helay waa kii wiiyo noodii la isku diidee sidaa uga tegay maxamuud xarbi kolkii calanka ay heshay soomaaliya waa ii yidhi maxamuud xarbina ila rida ana dalkaygii waa kii dabadaha u duulay waa nin shalay dhashay xoolaa doon lama yidhaahe naga joogsay tiri soomaalida dilidiisa soomaalida inay soo wahayd loo malaynayaa waa kii la waayey kolkaa arrintu sidaabay u dhacday halkan gargaraa lagu shiro been baa lanoo sheego dee iyadoo iska shirshiraysay ayaa been lanoo sheegoo la yidhi haddii la yidhaaho been masheegihii deed haddii ala dowladaha u shaqaynayay ayaa yidhi dee waxba ayna soo galaya waxba ayna soo galay odayaashii ma horaga nooguma ogen waxaana soo galay iyo wax kale midna ma jiro iyada oo shakigaasi u jiro ayaa odayga xuseen laxdin la odhanayay iyaa xoola laga qaatay xoolaha buu gelin ku dacweey daanyayowgii iyo wixii sii yaa la yidhi jimrigii baa laga kari waayey kolkaa buu haddii waxaygaa laysiin waayo waa lay eedi reerkiisii buu roro oda cali geliyey kolkuu oda cali gashay iyuu halkaa ka soo duulay ciidan buu soo qaatay hadhagaaluu yidhi de ciidan yaroo fadhiyey aada gelisi magaaladii waa ka gara horeysay waa laga il horreeyey ciidankii gaadh baa laga qabtay waa la xeraystay annaga kolkaad nallayso yaad u tagi baa layidhi ciidanka kolkaa buu yidhi haddii sidaa ayaa dhacday anaa garanayo basbasyaal baa dee jabuuti ka imanay basbasyaalkii buu joogsaday huubaley meesha la yidhaahe goldaar kolkuu ka dhaco yaa loo joogsaday halkiibu basbasyaalkii u joogsaday basbasaalkiibuu halkii ku laayey wuxuu dilay wuxuu dhacay hore ka qaatay nin faransiisahoo nin sare ahaana halkaabuu ku dilay halka kolkuu yimiday iyuu gaalkii yidhi waa colkii la ii sheegayey waxa baabuurka dilay holle ma jiro
وهذا المولتيو حجرين ما جروا وعلك اللي شيء يقول كاب وحلا وحي باديها سوقي ورورية وان معويس أحد تمام كحير بل يردح يعني إلهي ده أنت ده وحي الله بحر يا بحر ده أنت وك إلهي بحي حنا أوردن سلاسل بس أكون معري سلاسل دي حبيبي كي سلاسل بلدي ده ضبط بلوس شيء أربعة دي بحال يمن أربعة دي بعدين فرمسلك سلاسل ده فرمسلك لنا قد كل كار بابور كده يقول أنت أو قاعد لنا قبتي قاعد كل كار لنا قبتي سلاسة هي أربعة هي قميص صدح ذا قاعد لنا هي وحكرة هي وح محمد دنجرين يا dadkii ilaahay amarkii dadkii wixii baxayna u soo noqdo iyaa odayaashii dhaartii qabiiseed odayaashii tira kamil odayaashii badiray annagu col ma arkayno meesha wax ka dhacayna kifilkeenna ma aha waa hadha gaala waxaad yeeshaa dadka amba seefta mari amba naga jooji baa waxaanad wado gaalkii مرحبا waxaan tagay telefiisada waxaan tagayaa biyo qaboobe iyo biyo gurgur iyo biyo cunad baan tagayaa saddexda oo nabad hadaan arko nabadda ay sheegayeen kolka waan garanayaa odayaashii wuu ka haystay daraartii wuu socday qabiiseed kolka waxay ka soo hoyeen biyo cunad halkay ka soo hoydeen halkan casarkii loo yimaadeen ma nabadba waa nabad anoo dusha soo midka ku urursan والكابان أنا علي دمدي هدي جرتو وحن قرنا يا أيضا كهدي لنا قارك هاي وح حرنا للسود داي نبض كل كابان قرنا نبض وحن علي وح حرنا بشان سود دين الناس بحال سود دين وسود دالي قارك أنا واتبع كان ساكا وحي قال له قال بحنا بنا واستاسي وسكجوا وحبها كمان دقنا هدي واسكن نبدي لا بال dadkii de tuurasha ku joogay dhulka magaaladeed dadkii waxba de amar baa la bixin waxba laynina deelay dadkii tuurasha ku joogay de saddex qof ka soo gashay qarka awreegeed xaafad bay galeen mid baa qorisata waa maqribkii jimcaha soo galay kolka waa habeenkii jimcaha maqribkii nabad aan maqribkii galeen maqribkii tukaneen ayay xaga ka soo galeen ده كوي قارك هاي دبد جوجي ياد قري بس تمساري الله بالي كيف بالي انقبنا سوحة فتكا عباية انقبنا دي انقبنا الليل وما بقى الموقف سألوا حبد كوجي ضد كي قبنا يجي عسكري قاها يو حبد كوجي وعمل دي الكيدي وراه عسكري بعد التايدي هي هدد وضل قاضي حبد عسكري بعد التاي يا وضع لقى لما شاء الله سيدا بي حين همين كيت معاد سيدي بحيل للديلي كري للديلي صبح يبان اسكو سو ورفري وحي حقا انت حافظي سيدي كل النوايا يا هلك اسكو سو بحني وارنمدي يا waxaan xalay dhacay maxay ahayd taaskarkii ciidan badan oo boolis yar baa joogo kolka booliskii هم بعد سوق قال المقالة جبوا والله ما يلجوك تبع جبوا قال قال لي ما له بهالكاغ إنما حافظ أقل كي وده وابو قال ما يلبح الله يا باقل كي وده وابو قال لا فجع لما حان دعي كل كله وذا حريي هم على صونه تفضل لا كيف صداوي كل كيف الماء كل يلحق كل كهر الحري كل كي ضمنا فر لي يا لما عدي كل كي لما عدي ما نو البدل حب لسي حبد صببته صداوي أن هذه الشخصية دادا كحاجة الأهم سامين أنت اللي بكوية شيء بس لا هاي إن حسوقي وجع داي أنا قم بدباتك أنا وأنا دريفي واحد dadkii قبل يلي أو يلا صار هذا نفر لي الرصاص ولا دعي يا ده صويا
ninba ii soo dhacay halkaa kaga dhacdayoo cismaan ciltirloona reerku lahaayo haddii aniga koltay baana jabuuti ka noqday sheef kaartee aqal jadiid ahoon dhisay baan albaab oo loo maqsino ugama habaan albaabna dabadda u bixiya albaabna xaggan daaradda u furo albaabkii aan u samayno waan ligay ligadii baa la iska soo dubiyey oo la iga soo daatay dad badan kolka maqsin baan ku xoreeyey arrinta sidaa baan ku dhimanay kolkaa ninkii baa da ii soo dhacay halka ka dhaawacnaa kolkaabay dee kuwii eryanayena kii meel qol baan gashay dhiiggaa baan ka maydhay bari iyo waxbaan ka kabiyey kolkaa ciidankiina ii soo daatay halka soo daatay daaqadii waxaa lala joogsay dee albaabka laba ii soo dhacday labadii daaqadii baan ii furantay islaantuna kolkaa umul bay ahayd kolkaa waa ciyaalku dee dhintaana aqalkan ku xidhnay salaasa arbaca khamiis jimce intaana aqalkaa lagu xidhay kolkaabay yaa daaqadii kolka ii furantay rasadda ay xidhnayn ayaan albaabkii u furan ha ku qaado maxaad ku gaban haddeed kii albaabka midna daaqadda u joogay midna albaabka joogay baa de kii albaabka unbaa ilaahay de raxmad kaga ridajo ay wandhime adeero waad iga jeeda ay wandhime waa walaalkeen kari aan iska dayno iyo maanta walaal ma jiro labadii baa isqabsatay kolkaa kolley wuu dhimana ku kale hadile innagu lacagan ka qaadano iskaga tagno sidii bay igaga tageen lacag nasiibaa le barada dheer halkaa inaagta umilaho iyo gaajo iyo haraad bay meelaan ku wada gubanayna bay iga soo dababaxday kolkaas aysos aamus yadiina aamusiiyey markaas lacag nasiib lacagtii baan siiyey sidii bay igaga tageen haddeed magaaladu xabaddu ma damin ayaanteed ayay xabaddu damin oy socotay tiradu kolkaa arrintu haddee de anugu ma soo koobinin kowlaayo ma soo odhanno ma koobin haba saatee haddii qiyaasii wixii aan dee gemid haddaan seero dadku 500 buu ahaa maxay baa la yidhaahaa maxay kun buu ahaa gadeed anugu haddaan qiyaastayda miisaamo oo adaa run aan dhaawadeeyo 2,000 iyo ayaan ku qiyaasayaa 2,000 baan ku qiyaasayaa dadkii kaa ku dhintay meesha ayaanteed baa salogala ku jiray lagala baxay waxaan u gudbinayaa anigu kolkay dhibaato dhacdo taxdiir hala taxadiro kolka hala taxadiro baan odhan lahaa hala taxadiro wixii dhacaa kolkay wax dhacaan dadku waa inuu digtoonaado digtoon baan qabin ma lahayn digtoon ma qabin kolka dadka yaa la laynay digtoon ma qabin maxaa kolkaan waa socon maxaa nagu layn baa maxaa ku dhibanayna maxaa la nagu layn maxaa la inagu maxbaan dhinne maxba maya qofkii islaani hadda cartate anigu awr bay ku xidhatay alaabtii islaantayda way tidhi socoti ilaa biyo qoobe dee dowladna shicibkeeda ma laynayse waxaan waa tahdiiduune iska reeba dadku sidaabuu ku fadhiyey hadduu qof carari lahaa sidaan ku dhimanay sidaa bay ahayd waxa dhintayna haddaan gemidka u sameeyo 2,000 dadku wuu noqon lahaa eyshaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xooraan gudhin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaan goglan bay lahayd wagaag maxamuud nuur ad waxaad ka mid tahay dadkii ama shakhsiyaadkii goobjooga oo ahaa xasuqii 1960 laga geystay magaalada Ayshaa xasuqan soo dhacay taariikhdu sidee ahayd bal nooga sheekee waxyaabihii adigu aad u soo joogtay waxaa jiray kolkii inay ka qayb gashay Ayshaa halgankii Soomaalida weyn kolkii Soomaalida hal xoreeyo la yiri iyay ka qayb gashay waxay ku lahayd wax SYS halka xaadim bay halkan ku lahayd lama oranayno Israa'iil Soomaaliya har noolaataa la oran jiray aqalkii meeshoodii imika way bannaan tahay oo waa la baabiyey meeshii
meeshii way baabi'iyeen ilaa waxay gooyeen sibirkii aqalkii ilaa sibirkii bay gooyeen kolka halkaa bay ku lahaayeen meel xaarin ay ka taliyaan oo soomaaliya ha noolaataa la odhan jiray kolkaas soomaalida gobonimo hala siiya la yidhi 1948 tirada Yurubenka ayay warqad qoreen oo u direen Janeeba oo iyo kooleh halana siiyo gobonimada annaguna Soomaali baan nahay gobonimada na siiyo kolka warqadaasi way tagtay waxba waa loogu qaban waayay loogama soo jawaabin bacda mudad kolka hadeed gobonimadii Soomaalidu hadeed bariya saanta bay dhalinaysaa leedii ay ka tageen halkan waxay tageen laba nin bay hayeen waxay tageen xamar waxay doonayeen inay halgan halka ka soo bilaabaan maadaama ay kolkii u dhalatay iyaduna waxba waa loo qaban kari waayay say doonayeen way noqon weyday way soo noqdeen waxay soo galeen Djibouti oo Faransiisku gacan kulul ku hayo doonayay Djibouti daba inuu Itoobiya u dhiibo Djibouti oo Faransiisku oo ay xabashidu heshiis ku hayeen kolka raggii dhuumasho iyo rag madaxa oo Soomaali ah oo kolka Faransiiska la shaqeynayay iyo qusulkii halkaa joogay xabashida u tagay oo waan galay oo raggii cafis weydiiyey warqadaha la siiyey waxaa laga yidhi ahlisaa soo tago adsaaba taga way qaateen warqadii adsaabay tageen waxaa la yidhi waalina cafiye dhulkiinay ku noqdaa intay dirdaba intay soo socdeen iyo baabuur halkan Goldahar meel la yidhaaho uu oday kontrabaa laga qabtay Kurday si uu wixiisa uga qaato wuu soo galeen labadii nin mid wuxuu ku haray dirdaba midna halkan buu soo galay kolkiiba dagaalo lama doonane ay shacaan baa gaar laga qabtay ay shacaan gaarka laga qabtay iyo dirdaba galabtii annagoo soo rawaxnay aqalka ogaaska hortiisa generaal Sige Dibu baa la oran jiray oo wuxuu ahaa generaalka ciidanka Itoobiya oo madaxa Addis ka yimid wuxuu yidhi ninkii baabuur kaariday haddaad sicir ku keeni weydaan waa ni baabi'in wuxuu kelmadda weydi waxay ahayd anoo waxba ku dareen Soomaaliga ku sakhraamay caana geel iyo xabashiga kaatikaala ku sakhraamay waa isku mid kolka ragga 5 cisho ninka dad ku keeni weydin waa ni baabi'in mana u sugin waa hadalkii maalintii uu yidhi islaameenkiiba ciidan buu ka soo bixiyay halkii ay shacab ma dilin kolka ciidankii uu soo baxay wax alla wuxuu arko u dilayay kolka waa ciidankii ay shacana uu meeriyay oo lagu bilaabay ay shacana ciidankii wixii ari haduu helo ma taqaanaa lo haduu helo dad haduu helo diyaaradu way ku socoto bomb bay ku dhifanaysay xoolo way baabisay dad way baabisay wixii de Ilaahay bixiyay un baabaxay kolka sababta u weyn ee ay shacab ku dhimatay waxay ahayd Soomaalinimo ragani dadkani Soomaali bay doonayaan hal la tafiil tira bay ahayd ma ay shacab laaye hal laga baabiyaba dhulka bay ahayd Ilaahay un baan qadarin oo sidii baan ilaa maanta ku gaarnay waxa dhashay dargigii iyadoo sidii ay sidaa ka tabiyo dargigii dhashay dargigii kolkuu dhashay kolkii ugu horeysay dee uu ismacaaneynayo hadalla fiican buu ku hadlayay waxaan damacnay inaan dadkii ay shacab laayay madaxdii ahayd inaan la noo qabto annagoo dhalinyar badan oo Soomaali halkaa ku shaqeyna gaazeetada Itoobiya waxaa la odhan jiray Addis Zaman gaazeetada la odhan jiray ku qornay taariikhdii ay shacab waqtiga waxay ahayd baan 60kii waan ku qornay waxaan yidhi dadka sidaa baa loo laayay meesha sidaa baa loo laayay dadkii laayay la noo qabto waxba noogama soo jawaabin haddii imika archive la tago waa la helayaa warqada waxaa dhacay tan noogama jawaabin ay shacab waxa laga dhigay xero military haddii dhan ilbaab ka baxo iyo ilbaab laga soo galo tareenkana laba iyo ahaa midna habeenku soconay midna dharaartii labadii baa la isku xidhay waxaan soo raacay tareen bisha October kowdeedii waxa la dilina Utrecht ma September kowdeedii baan soo raacay batreen waxaan la socday labadii baabuur soo socdayaan halkan la socday xabada ilaa imika madaxayga ku hadhay waxa weeye halka kulan soo galina gabadhan garanayo xabashiya dhinac joogtay kuwa korneele iyo darajad waaweyn leena reerayga joogeen aw dadkii dhulka muumeedku yaala la haabu ka yiri waxay gabadhii raba ka tagi wuxuu ka yiri halka maad ka adki lahayd yakoo haadkii intuu cunay xaniyahoogo saadii uu hufay ay dabayshta u lulayso ayaad adki lahayd waa laga guray buu ka yiri kolka anigu si kala noqdo dib u galay baxsi bay ahayd kolka waan dhaafay Djibouti tagay Djibouti ma qaadaysa ma ahayn oo meelan ku noolaan kaliya ma ahayn waan iska soo noqday imika waxa dhacay dargigii isaguna tii unbuu daba raacayo militarigii unbuu sidii ugu daayay iyagoo kol kastaba sabab ka dhiganaya Soomaaliya iska eegaynaa
iyo xerooyin muhiimka haddaad sidaa u dhaaftiin dhufaysadii oo dhan baad arkaysiin dadkan imika meesha soo galay ee yimiday isbedelkan imika kolkay dhalatay isbedelkii imika iyay dadku ku soo noqnoqdeen ay shacab waxay ahayd meel la iska eegaba ee laba imanay kolkii imika isbedelkii dhacay wallaahi waxaan noqonay dee dad xoroobay oo soomaali ahaan qayb inaan ku leenahay etoobiya oo dad etoobiyana tihiina iyaa meeshii ka dhacday awalna nooma haysana dhul etoobiyana jire dad etoobiyani ma jira waa dad yimid oo ka tagaya iyaa lanoo haystay bay ahayd tii baan ku soo noqnoqonay oon meesha ku nimidnay anigu saantay waxaan ku soo noqday waktigaa waxa iyadoo dadku yar yahayna waan nimidnay waxay buulashii aan lahayn ee dhulku galaynina waxaa la keenay axmaar baa la keenay dhulkii lagu wala baayey aqaladiina la galay wixiiba la wala galay imika aqalada imika aan galayno waa aqalaan sasabi iyo bari iyo si kale aan ugaga baxsanay iyo soomaalida kusoo yar badatay dee waxaan maanta aad arkaysiin haddaad iman lahaydeen 15 sano horteed ma jirin dee dadkani imikana maadaama aan helay waxaan maanta arkaynaa inaan etoobiyaan nahayba annagu maantaan garanayna inaan etoobiyaan nahay awal ismaana noqon waxaan ahayn dad ajnabiya oo sida ugaadha dhankii loo eryan karaba loo eryado dabcan markaanu ka hadlayno dhanka isbedelka magaalada waaga iyo waqtigan maxaa u dhaxeeya dhanka kobaca magaalada markaanu ka hadlayno wallahi horta waqtigu iyadoo ay shacabna la eegin waqtigu wax badan buu iska wala bedelay kolkii hore dee shacab waxay ahayd zeylac bay ku xidhnayd oo dhulka kale waxba ma jirin waxay baabaaday zeylac kolkii tareenka shabanfeerka laga sameeyey jabuuti iyo wixii baa misharkii awrka ku soconayay iyo xagga u wareegay zeylac baabi kolkaa buu bilaabmay kolkaa magaaladu isbedel ma ay yeelan maxay u yeelan weydana dadkii lahaa way ka tageen dadkii yimidayna waxba kama gelin wixii dumaa waxba kuma ay biilinayeen hadday doonno aqal kolkuu dumo kan kale unbay gelayeen ilaan aqalaba iska wala bannaan baa jiray horumarna haba yaraatee wuxuu ka jiray ma jiro maanta dawlad baa nahay etoobiyaan baa nahay dhulkay wuu wala bedelay magaaladiiba ma aha magaaladii ninkii yaqaanay ayshaca waa ayshacadii ninba ma odhanayaba waa lagu halaabayaa maanta kolkaa isbedel weyn yaa u dhexeeya dadkiina waxay dareemayaan inay wadan yihiin inay dhulka leeyihiin bay dareemayaan maanta dhanka isdhexgalka qoomiyadaha shucuubta Ethiopia markaanu eegno waa sidii maxaa soo dhaxay farq waaga iyo waqti xadirkan waxaa jiray nin aan iskuulka wala dhiganayno aabihi la socday xabashiga ku yar xabashiga aabihi baa lagu dilay Goldar kolkaa shadii uu ooyay subaxii baan aniguna ku ciyaariyo kala maxaa aabaaga iyo dhulkayga day saddex isha dabadeedna isagii baa aniga ii yimid kolkii magaaladii waa la laayay leeyay anigu hooyo isagii dib igu soo noqday adiga ka maxamuud ahaan saameyn inta leegaya ku yeelatay nacam dhibaatadii waaga dhacday noloshaada ama shakhsiyadaada kolka aniga say saameysay dadkayga baa ku dhamaaday ani ilmaadeertay baa lagu laayay awowgay baa ku dhintay adeertay baa ku dhintay aabahay baa ka maqnaayo dildaba joogay oo kolkaana waliba reerku soo gaadhay oo halkan la saaragteeda ahaa iyo ciidan kulku soo baxay lug ku soo baxay dhanka kale ka soo wareego reerka ka raro meel kale geey waayo anu ay saameysay dadkaygii bay baabiisay xoolahaygii bay baabiisay waxaygii bay baabiisay ugu dambeyntii waa maxay fariinta aad u gudbinayso jiilka dambe mustaqbalka si ay u bartaan taariikhda wadankooda waxaa leeyahay jiilka dambe horta qofku taariikhdiisii hore halkuu ka yimid hadduuna gelin halkuu socdana ma garanayo kolka ciyaalkeena yar waanta way nasiib bay fiican bay leeyihiin oo waxyaal badan oo annaka la soo gaadhin baa waxyaal badan annaka la soo gaadhay baan iyaga gaadhayn maanta taariikhdii dhulkooga oo dhan baa loo sheegayaa waxaan weydiisanayaa dadka maanta waxaan ma taqaanaa xuskan iyo waxaan sameynaya inaa buugag laga qoro oo ciyaalka iskoolada lagu baro si ciyaalku u bartaan taariikhdooda ayshaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xoolaan gurin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaan goglan bay lahayd ayshaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xoolaan gurin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaa
goglan bay lahayd guushii Soomaali iyo maanta waxaa halkan si ballaaran loogu xusay xuskii xasuuqii ay shacaa ka dhacay 1960kii tirsiga reer Yurub taas oo dad aad far badan degmadan xasuuq badan loogu geystay isla markaana dhibaatada ujeedada loogu geystayna ay ahayd oo u dhimanayeen ummadaasi dad isbedel doona maadaama ay ahayn isla markaana dhibaatada ay ugu dhacday ay ahayd in magac Soomaalinimo xuskan si ballaaran baa looga xusay magaalada ay shacaa guud ahaan waxaa ka soo qayb gashay xukuumadda hogaaminta ugu sarreyso oo ugu horeeyaan madaxweyne Mustafa iyo madaxweynaha Aadan Faarax sidoo kale mas'uuliyiinta heer deegaan baa ka soo qayb gashay waxa iyaguna qayb ka ahaa munaasabadan ama xuskan ummadda Soomaaliyeed ama mas'uuliyiin ka socotay dalka walaalaha aynu nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti Somaliland iyo xubno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa iyaguna ka qayb ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka iyo isugu jiray mas'uuliyiin iyo xildhibaan kuwaas oo qayb uu ka ahaa ambassador Maxamuud Dirir oo qayb uu ka ahaa run ahaantii arrintan arrin aad u ballaaran bay ahayd taas oo ahmiyadda guud ama ujeedada guud ay waxa weeyaan xuskanna uu ahaa in maanta ummadda Soomaaliya haddaynu nahay in aynu taariikhdeena waxa weeyaan aynu wax ka qori karno maanta sidoo kale taariikhdeena aynu xusi karno dhaqankeennii aan kor u qaadi karno iyadoo shalay toole arrintaas ayna jirin balse maanta arrinta ahmiyadda ay u leedahay arrintan waa inaan taariikhdeena aan xusi karno ruuxaantii xuskan xasuuqa horta marka koowaad dhibaatadu ay shacab keliya ta ma ahayn laakiin meelo kale oo fara badan oo deegaanka sidoo kale isla xilliga xasuuq uu ka dhacay sida waxa weeyaan haday noqoto dhagax buur qabridda haday noqoto aw barre doolow sidoo kale jigjiga dad badan oo salaadiin ayaa xasuuq lagu geystay arrintan waa arrin muhiim ah ka xukuumad ahaan haddii aan ka hadlo ama ka xafiis ahaan waxaa noo qorshaysan in aan taariikhaha noocan oo kale inaan wax ka qorno oo wax laga barto isla markaana jiilka soo koraya ama dhalinyarta maanta waxa weeyaan mustaqbalka beritola inay taariikhdooda wax badan ay ka bartaan inaan u filno ayaa noo qorshaysan hadii Ilaahay rado runaantii dadweynaha fariintan u gudbinay waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed taariikh kala duwan bay soo martay halgan kala duwan bay soo mareen marka ummadda Soomaaliyeed fariintan halka u gudbinay waxa weeyaan maanta waxa weeyaan xilli lama joogo nin walba taariikhdiisa la qarinayo nin walba taariikhdiisa xilli uu soo bandhigayo isla markaana uu ku faanayo dhaqankiisa ayaan joognaa marka fariintan ummadda u gudbinay waxa weeyaan in ay waxa weeyaan ay xoog ay saaraan in aan xoog saarno waxa weeyaan in Soomaalinimo inaan waxa weeyaan midnimadeena inaan ilaashano wadajirkeena inaan ilaashano si wadajir ah inaan taariikhdeena dhaqankeeniba inaan u meel marno ayaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka soo qayb galay xuskan maanta lagu xuseeyay sanad guuradii 59aad ee xasuuqii Eeshaca ama dilkii Eeshaca ninba sidoo u yaqaan dareenkayguna waa mid aad u faraxsan in taariikhda hore loo caburiyay ee la sheegi waayay maanta dib loo xuso oo waliba si heer sare oo maqaam sare lagu xuso aad baan ugu faraxsanahay waxaan ognahay adeerow in wadankeena Ethiopia markaan dib ugu noqono taariikhii hore ahaan taariikh wax lagu cadaadiyo oo ninba sidoo doono wax uu qoro in caburin ay jirtay ku haysasho ay jirtay tiiba hay dilkii Eeshacana dadku sheegtay expression-koogii rabitaankoogii waxay dooneen ku hadlay wax kale ay sameeyeen ma jirto iyaa la dilay ahayd marka dilka xasuuqa gumaadka dhacay handana lama sheegin waa la caburiyay maanta 59 sano kadib ayaa taariikhdii la sheegay oo dadkeegii ay xusayaan waa wax aad loogu farxo 59 sano waa muddo dheer rejiimyadii ahaa maaragtay wax caburintii cadaadiska ahaa way isbedeleen handana kuwa xitaa iyaguna maaragtay caburinta ku jira iyagu qudhooduna ee federalism ka noqday maaragtay federalism ku dhisan isirka ku dhisan luqadda ku dhisan abaabulay iyaguna dastuurka sidii loogu talagalay uma ay fulineen oo 10 sano ugu dambeeyay deegaankeena markaan xasuusano xasuuq baan baa ka jiray isaguna oo dil baa ka jiray sanadkan ugu dambeeyay weeyaan imika waxa deegaankeena xorriyad la helay ee tan maqaatan isbedel uu jira oo dimuqraadiyad baa jirta imika oo waxa jirta dadku inay rabitaankooga si badheer u sheegtaan inay xuquuqahooga iyo taariikhahooga dib u soo huriyaan oo u soo nooleeyaan imika taariikhdani waa taariikh fiican waa taariikh dadka wax lagu barayo waxaasina way jireen waxaas yaanay dib u dhicin wax maaragtay cidna maaragtay lagu abaarayo ama lagu doonayo ama
in lagu cambaarayo la doonay maayo laakiin waa wax dhacay oo aan la sheegin oo haddii toole in wax laga bartaaytay taariikhdeennana inaan ku qoranno carruurteennu ay ogaato jilba jiilka ka dambeeya oo u dhiiba weeyaan marka waa in la xuso mar walba waa waajib baan leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo waddanka jabuuti ka imanay oo ay shacaa fadliga xuska lagu qabanqaabinayo maanta dee aanu imanay oo waxaan ka soconaa waddanka jabuuti oo xagga de farxaddana shucuurtayda qaarka wallaahi shucuurtayda alxamdulilah boqolkiiba boqol waa kaa dee farxadda aan ka soo qayb galnay yaa oon dee muxubbada intaa u soo marnayba wallaahi dee shucuurtayda aad iyo aad bay yaan u faraxsannahay shaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xoolaan gudhin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaan goglan bay lahayd shaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xoolaan gudhin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaan goglan bay lahayd daawade intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii toddobaadkan intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waa bahda SRT odin leh nabaday shaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xoolaan gudhin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaan goglan bay lahayd shaca gaybay ahayd ganacsi xorabay lahayd xoolaan gudhin bay lahayd garacade taliyay lahayd samaan goglan bay lahayd guushii Soomaali